Ururka UDAN ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay dood cilmiyeed ku saabsan isdhexgalka bulshada iyo waxbarashada dadka aragga la'. Dood cilmiyeedkan ayaa waxaa soo abaabulay Ururka Dhalinyarada Aragga Naafada ka ah UDAN. Dood cilmiyeedkan ayaa waxaa looga hadlayay ahmiyadda ay leedahay waxbarashada dadka aragga naafada ka ah. Dood cilmiyeedkan ayaa waxaa kasoo qayb galay ururada bulshada rayidka, qaar ka mid ah jaamacadaha dalka, ururada dadka naafada iyo ururada dhalinyarada gobolka Banaadir iyo macallimiin ka socota bahda waxbarashada ee gobolka Banaadir. marka waxaan aaminsanahay inaan shaqo fiican qabanay ka dhalinyaro ahaan waa soo istaagnay weli waxaa soo istaagnay anaka oo wadada naga horeysa ay tahay wada dhagax badan wada tintiin badan qaarkii tintiin ku dhacana madatiin inaa shaqeeysiin madatiin inaa noloshii wax ka bedeshiin jawaabta waxaa waa dee saas tahay u istaagay waxbarta aan boroaan gaadhiyaa maalin baa iska socdaa qof waxaa leediin mareykan joogyaan markaas waxay daris ma laga hor qaarada afrika ku taalo waxaa socdo ayuu ka warqaba salaam akhlaaq badan aqoon u leeyahay tahay markaan arkay dalka oo haddana dalmaro badan haddana maanta meesha aan kusii jeedo waxaan wahay wax aada ugu farxay isdhexgalka dhalinyarada halkaan wada joogto oo iskugu jiro ay dhan walbo ka gobol ahaan xafiiskeeda dhalinyarada gobolka Banaadir waxaa waaye halkaas 1 milyan iyo bar gobolka Banaadir oo dhalinyarada leeyahay ku nool aan u dhaxayna haddii aanay degmooyinkii haddii aanay ururada bulshada naftarkiina inaan barano aan wada fadhiisano aan wada sheekeysano dhan walbana aan ka wada sheekeysano casharadii aan dhigay iyo diyaarintoodii iyo waqtiga ay ka qaateen iyo say u fahmeen ardaydii ka horeysan uma dhigin kulli ka dambeeyna maanta aan sharaxa waxaan dareemayaa dadka ugu maskaxda badan inaan wax barayo qofka insaanka ah hadduu ilaahay meel ka dhantaano meesha kale ka dhamaystira waxaan rajeynayaa in la badalo dadka aan naafada ahayn wax la bartaa waxay kasoo bilaabatay quraanka kariimka markii uu soo deganay aayadda ugu horeysa maxay dhahay اختلاط سواء وحلا أخليه تاس بحب بارنتا أمريكا أكيد برشة دن رجيت مفكرش والله في ريو سوماليا سامعين لنا سواء حدنا آخر محاولة لنا قبلها ويرش يلا magaca sida ka aragtaan waa magaca la soo gaabiyay ururka dhalinyarada aragga naafada ka ujeedkan u dhan u aasasnay ma ahayn inaanu lacag ku helno ma ahayn inaanu magac ku helno in jiilalka naga dambeeya ee kuwa hadda kadib arag beeli doona iyo kuwa hadda arag kale ee carruurta ah inay helaan fursado waaweyn oo ay kow ka tahay sida la wada ogsoon yahay aqoonta oo free kooda noqonaysa sida idinku ku fakaraysaan ayay dadka araggan u fakarayaan oo waxbarashada waxa loo ordaya habeenay maalin waxa weeye in qofka horta qof ahaan u dhismo oo qof aqoon la noqdo akademiya kadibna uu ku shaqeeyo oo wax ku qabsado oo naftiisii dadka kale wax ku qabsado ururka UDAN marka wuxuu taagan yahay in dhalinyarada intii waxbaratayna uu sii bogaadiyo oo sii dhiirigeliyo oo hore u socda kuwa haata weli waxbaranay inaan ku baraarujino waxbartan raano oo ay noqdaan dad meel higsadaan oo kuwa hebel baa waxbartay heblaaya waxbaratay professor hebel waa qof aragna professor heblaaya waa qof aragna oo qofka ku dayda helo ayaan rabnaa caqabado waa naga hor imaanaya waana badan yihiin oo leeysa wax baranaysaa si u shaqeyn kartaa waad arag la-dahay hadalla marka qaarkood ee qofkii aan hadaf fog lahayn dhaawici karaya oo ay ka mid yihiin maxaa wax ka baranaysaa waxaa wax lagu barbarteeda laakiin maxay wax lagu baran kara maaha waa iska ciyaaraysaa haddaa wax barata maxaa qaban kartaa gurigii lay kolley ku noqonaysaa see wax u baranaysaa ma dhegaysataa ma maskaxda ku duubataa waxyaaba marka qaarkood aad iyo aad marka culus dhibaatooyinka aan soo marnay ma rabnaa dhalinyarada soo socota inaan gogol xaal usii noqono oo ayna la kulminaan bulshadii si dadkii ka horreeyay xuseen inay dareemaan dadkan dad caadiya wax baran kara waxna qabsan kara inay yihiin horta ka dhexdhacsiino oo fagaarayaasha noocaan iyo kuwo kasii waaweyn rabno inaan qabano haddii eeba noo soo tegayo aynu rabnaa bulshada Soomaaliya inaan ka dhiganno oo ay fahmaan qofka arag la-aantu ilaahay qur-aankiisa ku sheegay waxay fahmaan Allah ta'ala absaar walaakin taxmal quluubun fi Soomaal hada qur-aankaas sidaa ma sheegayso sidoo kale waxa ururku u taagan yahay in uu sameeyo isdhexgal bulsho muhiimadda ugu weyn waa dadka inaan dhexgalno oo dadkii noo fahmaan inaan dad la mid nahay
isdhexgalkaas aad iyo aad ururku ugu taagan yahay wuxuuna rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbartay iyo dadka waaweynba inaynu dareensiino inay dadkan la mid yihiin oo ay waxbarteen aqoon leeyihiin raaliga dowladda waxaan ku leeyahay waddanayna dhalinyarada halkaa fadhido maanta ka arki doontaan kaamiraha social media ka arki doontaan kan ugu hooseeya secondary ka baxaya qaar gabdho waa master iyo wax ka sareeya haystaan iyo dibaax intaba hal qof oo kamid ah oo shaqeeyo oo xafiis dowladeed ka shaqeeya kuma jiro waxaan weydiinaynaa dowladda Soomaaliyeed ee dalkan iyo dadkan madasha sababta ay u shaqeyn waayeen dhalinyarada aqoonta yeelato wax baratay oo dalkooda wax ku baratay oo duruufo adag wax ku baratay ay shaqo la'aan u yihiin dowladda weydiinaynaa waxayna fariinteenu si gaar ah uga socotaa madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Roble wasiirada golaha baarlamaanka cid kasta gobolka banaadir cid kasta oo dowladda xubnaheeda ama waxyada kala duwan fariinteeda ku socotaa ugu yaraan 50 qof oo dhalinyaro arag la haddaanu ka weyno xafiisyada dowladda ee kala duwan haddaynu ka weyno waxaan u qoonsanaynaa inaan nahay dad ajnabi oo dalka waxba ku lahayn la rabin hay-adaha gaarka ah ee dalkan ka howlgala oo ajnabi ha ahaadeen oo loo kala ahaadeen ayaguna sidoo kale fariinteeda ku socotaa maalin walba dhalinyaro Soomaaliyeed baa hay'adaha u qortaan oo shaqooyin kala duwan u qortaan hal qof oo arag la oo dhalinyaro ama naafo guud kuma jiro nagamana aqoon badna nagamana aqli badna nagamana garaad badna waxaan ka codsaynaa bangiyada shirkadaha weyn ee dadka Soomaaliyeed leeyihiin ayaga fariintooda ku socota hal qof ma shaqaalaysiin hal qof kama shaqeeyo bangi Soomaaliyeed hay'ad shirkad Soomaaliyeed ganacsiyada waaweyn ee kala duwan ee Soomaaliyeed inta waxay ka shaqeynayeen waxaan isleeyahay inay tahay inaynan dareensanin ama isdareensiinaynin inay dalkan iyo dadka dhulkan ku leeyihiin oo Soomaaliyeed shirki kastoo dhacaan baqay galo madaxda dalka ugu sarreysa waxay noo muujiyaan calool jire farxaad dalka waxaad ku leedihiin dadkii munaabatiin laakiin maxay warkan ku dambaysaa qawda maqashi waxna ha u qaban kasoo daalnay markaan isbedel baranna rasmi ah oo dhalinyarada naafada araggala